so heerka fashilku haysa waxaan rabaa marka waxay ila fiirisaan gabdhaha iyo wiilasha aad ba maanta waa badee maba sininba gabdhaheeba badanba su'aal baa laga yaabaa in la isweydiinayo la leeyahay gabdhuhu ganacsiyada ay bilaabaan ka war gabdho indhaha fura daatadan si fiican u fiiriya shirkaduhu ay bilaabaan wiilasha iyo gabdhaha ama wiilasha keligood waxay heleen $156.2 bilyan halka kan gabdhaha kaliya ee asaaseen ay heleen $28 bilyan xagga fundingka marka la eego maalgelinta walidaalika dumarka keligood u taagan haddaad isdhehaysa Soomaaliya kaliya lagu qoostaa Benway it's just a global phenomenon adduunyada oo dhan ay ka jirtaa gabdha maxaad u baahan tihiin marka of course waad samaysan kartaan ganacsigiina laakiin ganacsigu bilowgiisa ma sahlan it's tough walidaalika haddaad la bahoobi kartid arday kugu fasala isku darsan kartaan arday kale isku darsan kartaan dad kale aad u muhiim u yahay sidii suna startup-iska ganacsiyada la bilaabayo 2 ilaa 3 inta guuleysatay saasi u badan yihiin oo 2 meel ku kala fiican for example qof baa wuxuu ku fiican yahay marketing iyo suuqgeynta qofna wuxuu ku fiican yahay visionka iyo arrintan meesha u socotay hal abuuro kala weeyo laga yaabo inuu code qorayo laga yaabo inuu wax kala sameeyo marka aad fiiri sidoo kale 2023 fiiri fundiga ay heleen gabdhaha 2% weeyo wiilashuna waxay heleen 20% in la maalgeliyo ganacsigooda so hadda isleedahay inaga inta waan lagu quusanayay ma aha inta kaliya ma aha laakiin naturally si dabiici ah gabdhuhu way hal abuur badan yihiin aad bay u fiican yihiin laakiin markuu yimaado entrepreneurship markuu yimaado it's challenging soo jeetira badan environment aad iyo aad competition mararka qaarkood waa cutthroat in qoorta la iska gooyo noqonaysa dadka qaar mararka qaarkood waa in la isku dul socdo oo aad dhaawacyo iyo looga soo tago halkaas so waad u baahan tahay qof ku balance gareeyo at least motivator ku noqdo that's why kan wiilasha iyo gabdhaha oo iswata ay uga fiican yihiin by the way wiilasha keligood xataa waxay yiraahdaan hoos markay u sii fiideen wiilasha iyo gabdhaha markay isla socdaan ka soo xoogan waayo gabdhaha aad iyo aad ugu xoogeen xagga intuitionka inay wax sii arkaan cilad sii arkaan naxariista howlahaas way ku fiican yihiin marka dhankii customer care iyo marketing iyo qodobadaas oo kale gabdhaha way ku fiican yihiin sawira marka wiil very tough team tough iyo gabdho balance gareeyo intuitionkii iyo caqliyadii ahay team noocaas oo kale way ka xoog badan yihiin team keligooda oo qarfadyo oo meel iska taataagan ama gabdho laga yaabo jug yar markay soo gaarto wallahi abay waxaan sameyn karnaa iska dhaafnaa isdhahaya isnadiisi so now waxaad arkaysaa marka labada color markaad kala fiirisid madowga iyo colorka kala fiiri it's massive difference kala duwanaanta aad bay u weyn tahay soo ma so raadso qof shariik kula noqdo raadso qof aad wax wada qabsan kartaan oo haddii aad isfahamtaan aad wax wada qabsan kartaan by the way ina isku kuliyad noqotaan qasab ma aha ogow fikirka ku saabsan ardayda IT waxa isla qabato ardayda businesska ardayda engineeringka iska dhaadhicin been ah weeye taas sababtoo ah problemka suuqa laga xalinayo wuxuu dalbanayaa xirfado kala duwan it's not just one ma sida darteed waxaad u baahan tahay arday engineering iyo arday business iyo arday IT mashruuc ay aasaasan uu ka fiican yahay mashruuc ay aasaasan koox yar oo wada business because engineering mindset waa loo baahan yahay scientific analytical falanqeynaya kii business waa loo baahan yahay intuition kii mindset kii kala loo baahan yahay computer kii code kii website kii muxuu ahaa artificial intelligence ka engineerku ka hadlay all these things come together aad arintu sheegay way wax wada qabsiga way nagu xuntahay inaga Soomaaliga gal so waana la ogaaday oo waxa loo baahan yahay teamwork works koox in wax loo qabtaa wax lagu qabtaa mooyee shakhsi uu dhib badan yahay kaliya waxaad fiirisaan marka cajiib weeye ardaydiina waxa laga yaabaa odayaasha sii waynaanay ina istiraahdaan new ever weeye ganacsi hadaadan yaraan ku bilaabin waa bas false daraasadan la sameeyay fiiri average isku celcelis ahaan da'da ganacsiga bilowda adduunyada waa 42 jir micnaheedu waxa weeye meeshaas waqti dheer aad haysataa how many kufa ku dhiman ma taqaan it's a lot maanta hadaa bilowday maxaa ku suura galaya 20-30 times aad ku fikirtaa
before the average intaadan gaarin oo kale hoosna sii fiiri haddana ganacsiga 60 jirka uu bilaabo inuu guulaysto aad iyo aad buu uga suuragal badan yahay midka 60 jirka uu bilaabo ustaad baa farajo fiican meeshaas ka jirto big so 60 ayaa lagu bilaabayaa ganacsi adigina maanta aad niyad jabsan tahay can you imagine maanta aad isdhiibtay can you imagine marmarsiyada aad haysto dhanna ma taqaano aad isu dhiibaysid waddankii baa eber ah kuwa sheekaysanaya arkaysaa mararka qaarkood isu yimaado wallahi inuu waddanka mugdi buu soo galayaay wallahi xaalku wuxuu yahay xaalka dhexdaada ka xunaa ka badan kan bannaanka ka xun to be honest with you waxa kaa dhex socda tuuga maalin kasta kugu dhex jira adiga ee xadarriyadaada ee ku niyad jabiya ee aad la kiclaadahay ee salaad subax la dukan laadahay ee kugu mashquuliya qancinta dadkaas kale khalaas gabar haddaa tahayna waxaad ku mashquulsan tahay maqaarkaaga saad ugu qancin lahayd qolo kale adoo bedelaya wiil haddaa tahayna waxaad ku mashquulsan tahay kii tv-ga laga arkayay saad isu eegaysay si iyaga ay kuu jeclaadaan ma u malaynaya inaad sii wadi kartaan saas manana anfacaysaba dee inagoo dhanba it's not by the way waxaan idiin sheegayaa fursadaha iyo waxyaabahaas marka laga hadlayo fursaduhu aad iyo aad ay u badan yihiin marka la fiiriyo waqtiga hadda la joogo cid wax noo sheegtay innaga saan ma aanan helaynin waagii idinkoo kale aan ahayn ee jaamacadda la dhiganayay fursadaha maanta magaalada ka jira ma aynan jirin